deeqdan oo ka kooban raashinka noocyadiisa kala duwan ayaa waxaa guddiga gurmadka gobolka Sool xafiiskiisa Boosaaso ku wareejiyay gabdhaha beesha Cabdiraxiin Saleebaan waxayna sheegeen inay garab taagan yihiin walaalahooda reer Laascaanood oo ku jira xaalad dagaal. Guddiga ayaa uga mahad celiyay deeqdan la soo gaarsiiyay. waxaan u mahad celinaynaa gabdhaha walaalaheen ah reer Cabdiraxiin Saleebaan ama Maxamed Harti Cabdiraxiin Saleebaan oo maanta ina soo gaarsiiyay deeq aad iyo aad u qiimo badan. waxaan leeyahay jazaakumullahu khayr wa ahsana Allahu ilaykum. aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waana wanaagii iyo sharaftii looga bartay gabdhaha inagoon kala reebaynba gobolka degan bari. waana idinka gudoonay si sharaf leh wanaagsan baan idinka gudoonay si aad sheegteenna ma noqonayso tii ugu dambeysay way u horeysaa waa bilow insha Allah ta'ala. waana runtii waxa weeye dareenka iyo maaragtay aad muujiseen walaalihiin gobolka Sool mushkiladda iyo culeysku haysto ilaahayna inuu ka rajeynayno ilaahay subxaanahu wa ta'ala inaga wada faydo waa dhibaato iyo xanuun dhammaanteen ina wada haysa oo maaragtay kulligan aynu dareemayno. waxaa halkan maanta noogu yimid hoolkan gabdhaha beesha Cabdiraxiin Saleebaan waxaan leenahay shukran laki wa jazaakallahu alf khayr. deeqda badan ee noocyada ka badan isugu jirtay bur iyo bariis iyo sonkor iyo qaybaheeda dhamaantood timir leh biyo leh waxaan idin leenahay walaalayaal ilaahay subxaanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka idin saaro waa idinka gudoonay waxaad ku soo beegantay bil Ramadaan bay deeqdan ku soo beegantay awalkeed iyadoo ay joogan dad badan oo Boosaaso ku soo qaxay iyadoo ay joogan dad badan oo jiidaha ku jira iyadoo baahi weyn loo qabo waxaan leenahay walaalayaal waa dadaasheen waxaan dareemaynaa hooyo waqtigan oo Ramadaan ah oo ay tahay xilligan 12 ay marayso xilliga boqolaysa iyadoo sooman waxaan arki karnaa ama dareemi karnaa damiirka soo kiciyay inuu yahay hiil walaal kii ugu muhiimsan inuu yahay. waxaan leenahay shukran laki ilaahay subxaanahu wa ta'ala idin barakeeyo. waxaan rajaynayaa gabdho badan oo daarood ah oo Soomaaliyada jecel inay arintaas oo kale iyaguna ficilka qaadan doonaan inay dhiirigelintaas oo kale waxa weeye ka midoobi doonaan inay ka miro dhalin doonaan haddaan wax yar u milicsado intaan dagaalku bilaaban ka hor markii dhagax tuurku ka socday Laascaanood gabdhuhu intay weerka cas xidheen ku dagaalamayeen dhalooyinka iyo midiyaha iyo dhagaxa beebaha iyo kaaraha iyo AK47 lagu garaacayay waxay ogaayeen in gabdho noocaas oo kale ay la dhasheen inay garab haystaan bay ogaayeen inay hiil iyo gurmad helayaan bay ogaayeen niyad bay ku dagaalamayeen waxa la gardarada maxaan ku raad xoog garbaha og looma taagelo waxay ogaayeen hiil walaal bay isku ogaayeen kiina waanu haynaa waa tamaanta waxa way guusheeda intii badan in faraha kula jirno inta yar aynu hadhayna bil itmilaa waa ku gooleysan doonaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala xaq u garabka siiyo xaq darada garabka ma siiyo. anagoo ah gabdhihii beesha Cabdiraxiin Saleebaan ee magaalada Boosaaso maanta waxaan halkan u taaganaa inaan wareejino qadar raashin oo aan ugu talagalay walaalaha reer Sool. runtii waa waajibaadna saaran oo aan xaq isugu leenahay ma ahan waxaanu abaal u dhiganayno ama aan cid magac kaga raadinayno waa wax xaq nagu ah dhibta ka dhacday Laascaanood ama Sool in walba uu og yahay qof bana waa waajibaad ka saaran inuu u gurmado manihin gabdhihii ugu horeeyay manihin ku ugu dameeyay halganka waa wadaynaa ilaa Laascaanood xor ka noqonayno haddaan wax kala weyno dhiigan shubaynaa. qaabtan wadnaad waxa way deeq raashina waxay ka kooban tahay bur bariis saliid timir iyo biyo isugu jirta horena waa uga qaadanay maaha arintan oo midda ugu horeysa hore uga qayb qaadanay tii ugu horeysa ma tii ugu dambeysana maaha insha Allah dadkuna waa isku mid waana walaalo waana arin ugu talagalay walaalaha reer Sool insha Allah markaas waa u taagnaanayna gurmadka iyo hiilka hiil walaal waa u taagnaanayna insha Allah inta aan noolahay waarana ku waajibaadad lagu soo duulay dadkooda lagu soo duulay xoog lagu haysto inaan xoreeyno insha Allah inuu xoreeyno dhamaanteena waa jecel insha Allah ilaahay inaan la garab galo. intii hadal ahayd walaalahay iga horeeyay baa yiri waa inta ay sheegeen waan u mahad celinayaa dhamaantiin iyo idinka iyo iyagaba waa gabdhihii beesha Cabdiraxiin Saleebaan oo ahaa reer Boosaaso insha Allah ta'ala deeqdan tii ugu horeysana maaha tii ugu dambeysana maaha waa la sheegay gabdhihii badankoodi way soo socdaan biidnillaahi inta yadan hadda waa inta yadan Boosaaso deganeed insha Allah ta'ala waa ka fiican baan la jecelnahay walaalahaya garabkoodana waanu nahay mar hore iyo mar dambeba. waxaan wadnaa deeqdan aad arkaysaaneen gabdhii Boosaaso oo Cabdiraxiin Saleebaan weeye waxaan noo soo gurmanay dhibaatada ka jirta gobolka Sool
oo haysata dadka garabka iyaga oo walaalahaya ah insha Allah tii ugu horeysana ma tii ugu dambeysana maaha ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu inaka qaboojiyaa isaga wax noo qaban kara isaga wax walba awooda inagu waxaan haysano waan isugu gorman karnaa waxa awoodda ilaahay baa iska leh marka insha Allah waxaan ka baryaynaa iyagan iimaanka inuu ku celiyo meeshooda ku celiya iimaan hadduu soo qornayna ilaahayna ka qabta waxa weey habaari mayno oran mayno ilaahu qabo iyagana ilaahay meeshooda ku celiyo oo xaq ha tuso innagana ilaahay ha inoo gargaaro oo inoo heliyo ilaahay inoo heliyo xaq ilaahay oo heliyo xaq marka walaalayaal raashinka aan wadno maaha kii ugu horeeyay maahana kii ugu dambeynaya insha Allah waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkiis in ilaahayna ka joojiyaa oo waxaan dhibaatadan ka joojiyaa waa wax culays ku wada haysa idinka kaliya ma aha culeyskeedu kuma haysay inagoo dhammaan ku haysa maxamed muuse qaal sahal cable tv boosaaso ma ogtahay macmil in akoonka Sayfin akoon oo kamid ah akoomada Salaam Banki aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqada iyo meel kastaba waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga xidig lacagta 4 gees Sayfin akoon waa koonto dhigaal ah oo macmiilku ku keedsan karo lacagihiisa si fudud waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bangiga oo kaliya ku keedso lacagahaaga koontada dhigaal ee bangiga Salaam